kulan ay yeesheen habeen hore madaxweynihii hore ee Soomaaliya iyo weliba madaxweynaha cusub ee dowladda Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo ayaa la sheegayaa in la hordhigay saddex xil oo qaban doono madaxweynihii hore ee Soomaaliya Sheekh Shariif Sheekh Axmed isla markaana loogu guuleystay doorashadii ugu dambeysay ayaa haatan la sheegayaa in loo magacaabi doono saddex xil. Saddexdaani xil oo Farmaajo u bandhigay madaxweynaha ayaa ka mid ah inuu safiir ka noqdo dalka Mareykanka iyo weliba safiirka dalka Uganda maadaama halkaasi uu degan yahay. Xilka saddexaad ayaa la sheegayaa inuu yahay inuu madaxweynaha cusub oo la noqdo la taliye isla markaana kala taliyo xaaladda waddanka. Shariif ayaa la sheegayaa inay aad ugu adkaatay inuu noqdo la taliye balse la sheegayo inuu ka mid noqon doono safiirada dhowaan la magacaabi doono. Shariif Sheekh Axmed ayaa saldhig u ah dalka Uganda isla markaana ay degan yihiin qaar ka tirsan qoysaskiisa, balse la arki doono wixii kusoo kordha iyo hadba xilka loo magacaabo. Inkastoo lagu wado maalmaha soo socda in xilal fara badan uu magacaabo isla markaana soo dhiso ra-iisul wasaaraha iyo xukuumaddiisa. Wixii kusoo kordha wararkeena dambe ayaad kala socon doontaa balse subscribe